Artificial Intelligence loona soo gaabiyo AI waa caqli macmal ah oo lagu sameeyo mashiinada AI. AI waa awood mashiinku u leeyahay inuu fahmo, barto, una shaqeeyo sida qof bini'aadmi oo kale ah, isagoo adeegsanaya xogo iyo algorithm gaar ah. Haddaba waxaa jirta laba nooc oo waaweyn oo u kala baxo AI-gu: Weak AI iyo Strong AI. Weak AI-ga daciifka ah waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Narrow AI. Midkan waa nooca AI-ga ah ee loo sameeyay inuu qabto hal shaqo oo gaar ah. Waana nooca hadda sida weyn dunida uga shaqeeya, waxaana ka mid ah Siri AI oo ah barnaamij loo adeegsado taleefannada iPhone-ka, sidoo kale Google Assistant oo isagana loo adeegsado taleefannada Samsung-ka ah, GPT oo ah barnaamij hadda si maalinle ah loo adeegsado barnaamijyada wax turjuma sida Google Translate oo kale, barnaamijyada wejiga aqoonsada Face Recognition oo kale, barnaamijyo kale oo badan. Strong AI-ga awoodda badan midkana waxaa sidoo kale loo yaqaanaa General AI. Nooc AI-ga ah oo leh garasho guud, waana mid aad uga awood badan Weak AI-ga aynu hore uga soo hadalay. Nooc AI oo loogu talagalay inuu qabto hawl kasta oo uu qaban karo qofka aadanihi, sida inuu sameeyo cilmi baadhis oo uu fahmo, dareemo qofka aadamaha ah, iyo hawlo kale oo badan. Strong AI weli si buuxda suuqa uma soo gelin, se waa midka la rajaynayo in mustaqbalka la sameeyo, ahna hadafka ugu weyn ee mustaqbalka AI-ga. Haddaba aad uma isleedahay daawade, haddii la gaadho Strong AI oo la soo saaro in uu shaqooyin badan oo hadda ay aadanuhu qabtaan hawada ka saari doono, maadaama uu yahay mid aad uga awood badan ka hadda aynu adeegsanno ee dunida ku baahsan. Wabillahi tawfiiq. Artificial Intelligence loona soo gaabiyo AI waa caqli macmal ah oo lagu sameeyo mashiinada AI. AI waa awood mashiinku u leeyahay inuu fahmo, barto, una shaqeeyo sida qof bini'aadmi oo kale ah, isagoo adeegsanaya xogo iyo algorithm gaar ah. Haddaba waxaa jirta laba nooc oo waaweyn oo u kala baxo AI-gu: Weak AI iyo Strong AI. Weak AI-ga daciifka ah waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Narrow AI. Midkan waa nooca AI-ga ah ee loo sameeyay inuu qabto hal shaqo oo gaar ah. Waana nooca hadda sida weyn dunida uga shaqeeya, waxaana ka mid ah Siri AI oo ah barnaamij loo adeegsado taleefannada iPhone-ka, sidoo kale Google Assistant oo isagana loo adeegsado taleefannada Samsung-ka ah, GPT oo ah barnaamij hadda si maalinle ah loo adeegsado barnaamijyada wax turjuma sida Google Translate oo kale, barnaamijyada wejiga aqoonsada Face Recognition oo kale, barnaamijyo kale oo badan. Strong AI-ga awoodda badan midkana waxaa sidoo kale loo yaqaanaa General AI. Nooc AI-ga ah oo leh garasho guud, waana mid aad uga awood badan Weak AI-ga aynu hore uga soo hadalay. Nooc AI oo loogu talagalay inuu qabto hawl kasta oo uu qaban karo qofka aadanihi, sida inuu sameeyo cilmi baadhis oo uu fahmo, dareemo qofka aadamaha ah, iyo hawlo kale oo badan. Strong AI weli si buuxda suuqa uma soo gelin, se waa midka la rajaynayo in mustaqbalka la sameeyo, ahna hadafka ugu weyn ee mustaqbalka AI-ga. Haddaba aad uma isleedahay daawade, haddii la gaadho Strong AI oo la soo saaro in uu shaqooyin badan oo hadda ay aadanuhu qabtaan hawada ka saari doono, maadaama uu yahay mid aad uga awood badan ka hadda aynu adeegsanno ee dunida ku baahsan. Wabillahi tawfiiq.